magacaygu waxa weeye Xuseen Daahir Ibrahim Xuseen Daahir Dirbina waa la yiraahdaa waxaan ku noolahay magaalada Stockholm adigu wixii 9 ka dambeeyay marka 30 sano dadku meesha joogaan ahay dadka wadanka wax ku bartaan ahay fiilkayga ama meesha aan wax ka bartay ama qaybta aan ka dhigtay waa magaalooyin kala duwan oo jaamacadaha wadanka kamid ah laakiin macallin baan ahay kadibna waxaan dhigtay wax la yiraahdo tirtoornimada oo muddo 3 sano iyadana hadda waxaan ku shaqeeyaa iskuul aan ka asaasnay wadankan Sweden muddo laga jooga hadda 26 sano sanadkii 26aad baa socda oo loogu talagalay dadka waayada hore soo qaxay inay bal helaan meel ay ku xasuulaan ku nagaadaan fikir iyo hal abuur ayuu ahaa kaasna waa waxana qaaday sida walaalkii igu horreeyay uu sheegayay hal door ninkii la dhahay miya fikirka markuu waxana qaado aad buu wanaagsan tahay waa loo soo dhabar adeegay haddaan u soo noqdo hadalka ama fikirka caawa lagu qaada dhigaya madasha maalgashigu iyo hal abuurkuba labadaba waa muhiim waxaan u kala qaadayaa laba arrin baan u kala qaadayaa ama saddex aan iraahdee midda koowaad oo ah hal abuurku waxa weeyaan waa sida qof wax hindisaya ku fikiraya ama ku talamaya inuu wax sameeyo waxa loo baahan yahay marka in uu hayo qofku ama dadkaasi ama dhowrkaasi qof oo fikradooda isku biirinaya inay hayaan wixii wax lagu fulin lahaa oo badanaa ah lacagta midda labaadna ay tahay dadkii la jaan qaadi lahaa oo la qaban lahaa hawsha hadduu keli yahay inuu keligii u qaban lahaa tan saddexaad oo ah loo baahan yahay inay tahay aqoon qofka waxa uu sameynayo waa inuu aqoon u leeyahay badanaa waxaa dhacda in qofka uu fikir isku qaado fikirkaasina ay noqoto mid aan shaqayn sababtoo ah habku u maleynayay iyo aqoontu u lahaa ayaa ku yarayd marka dhinaca hal abuurka waataa markay noqoto maalgashiga marka qofka wixii uu hal abuuray ama hal abuurka uu ilaahay markaasi siiyey ayaa waxaa dhacaysa in loo baahan yahay marka in la maalgeliyo marka maalgashiga sidiisa waa geesinimo dadkii hore hadday uga hadleen waa sida haddii kalena anaa hadda ku daraya geesinimadu waxa weeyaan waa qof markaasi dareemaya hanti uu haysto inuu hanti ka soo saaro midda koowaad alaab waxa dhacda marka mar alla markii la sameynayo maalgashigaasi oo fikirkaasi la keenay in qofka marka fikirkii uu ku talagalo inuu meel mariyo walaalkii igu horreeyay haddaan ku soo gaaray qodobada uu ka dhawaajinay waxaa ka mid ah in uu fikirkii hana qaadi waayo hadduu hana qaadi waayo qofku waxay ku noqonaysaa fashil kharash baa ka galay waxa uu ka rajaynayay waa uu ka weynayaa macnaha fikirkaasina waxa keena badanaa ama fashilkaasi waxa keena sidaan hore u sheegay qofkii inuu wixii uu sameynaya markaas uu isku qaadayay ama haldoorku la yimi inuusan aqoon gaara u lahayn isla mar ahaantaasna uusan u soo kiriysan dadkii markaasi ka kaalmeyn lahaa ama aqoonta u lahaa ama xirfadaas yiqiinay waad garan kartaan oo hadda tusaale haddaan usoo qaato waddankeenna soomaaliya oo dhan baa yaraahdo qof walbo markaasi ama group walbo lacag heli kara waxa ay ku talamaan badanaa waxa weeyaan hodheel baynu sameynaynaa mar alla marka laga hadlayo adduunka xisaabaadka la fiiriyo qorshaha la fiiriyo waxaa la eegaa wax la yiraahdo afka qalaad waan ka warwareegsanayaaye baahida jirta iyo waxa markaasi ay aad samayn kartid wixii la heli karo iyo wixii baahi ahaan loo qabo haddii marka hodheel aan kaba soo qaadaba hodheelada dad badan baa hadda wiilka walaalkii ugu horreeyay wuxuu ka hadlayay ii sheegeen hal cabdicasiis sameyn wuxuu ka hadlay aqalada la dhisayo tusaale ahaan aqalku waa muhiim macnaha ummado badan baa waxay leeyihiin marka hore aqal hel kadibna wax kala samayso aqalku qof uu ku nool yahay waa sax waa muhiim laakiin markii la yiraahdo meherad oo aad rabtid adiguna inaad wax ka faa'iidid dadkana wax uga faa'iidaysid waxa la eegaa baahida meesha jirta baahida meeshaasi jirta haddii adigu aad u aragto inaad fulin kartid aqoonteeda leedahay ama aad iibsan kartid macnaha iibsan kartid waxaan ka wada aad kiraysan kartid dadkii markaasi aqoonteeda lahaa way ku hana qaadaysaa sababta baahida baa jirta wayna hergelaysaa demanding baa la yiraahdaa iyo mataqaanaa ii sheegeen baahida iyo ii sheeg baahida dawladeeda marka
anigu waxaan aaminsanahay qodobada ugu waaweyn ee waddan lagu maalgashan kara waxay tahay in la helo xasilooni iyo deganaan ka jirta waddanka. hadday madax meesha ku jiraan iyo wasiirro ku jiraan ay maqlayaanna waa wanaagsan tahay in arrinkaasi qaataan. xasilooni iyo deganaan hadduusan qofka uusan ka arkaynin meeshii way adag tahay inuu maalgashi sameeyo. waa la samayn karaa oo waa lagu dhici karaa waa lagu dhiiran karaa laakiin waa ay ka yara wanaagsan tahay markii xasiloonida jirto. marka ku dheeraan mayo fikirka waynu wada qaybsanaynaa waynu wada wadaagaynaa. maalgashiga sidiisuba geesinimo u baahan yahay. hal abuurkuna waa muhiim qofka inuu hal abuur hayo oo fikir la yimaado fikirkaasina ka dalbanayo inuu lacag haysto ama dad la maalgeliyo uu helo. laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan baahida meesha jirtaa maxay tahay. haddii aad rabtid inaad fikirkaasi fulisidna aqoonteeda ma leedahay. intaasoo shay haddaan la iswaafajin badanaa dhibaataa dhacda. fikir ahaanna waa uu jiraa waxyaalo tiro badan oo looga baahan yahay maanta waddanka. marka halkaasaan ku hakanayaa afkaar isdhaafsiga dambe ayaan ka qaybgelaya haddii alla. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.